gabadha hadda imaqlaysa bal waxaad noo sheegtaa halka aad joogtaan iyo dhibaatada aad la kulanteen. أنا واحد جونا سعودي عربية جارهان جد حافظ الرياضة جونا جميسي تنبني صومال نقصوا وتخيانا نقصوا مركا ماشى نبكين أفر الوقت ساعة جميسي توني أوليا فوضي نالين اللي حولان نلكيني. dhibaatooyinkaas aad la kulanteen haddii aan mid u kala qaadno gabdhaha la kufsaday oo aad noo sheegto oo idinka midka waa imise ruux. أبواب الصومالية وما تروح على قصة الرجال كررت موجود جيران بدنا وحوا إندونيسيان جاي يكون كلام مساكينش على قصة الصومالي إنك ضد سكول حرم ما أنت لكن قديه جو بدين إنه حفرت نيد قصة حرم رواد جوينا هيتهان. هاي. marka walaal meeshaan aan ku jirnaa dadkeena ehelkeena waxba nagama oga telefoon nolama ogolahay 24 saac niman oo 20 jiryaal waaweyn inaan qolal nagu soo xirtaan tumaayeen sida ari oo kale. marka shaqada markii hore la idin geeyay dalka Sacuudiga la idin sheegay maxay ahayd? أنا أول شقة سومالي كون نوصل بندق وحنا الدهاي سومالية سانا جرت برنامج حوا أفر لا تكسر استراحة كنولانيسين وصو شقة سنتين لو سنة واي حل سنة وصو لابنيسين قلبي أو بس نرسينا حاجة كان لقينا وحوو نيجو ميسنا يملهن تلفونا نرسي أمان تجرون نيجي بجينا يدسو أو عربا نيكل ولا نيس بريه نيكل جيسنا يدسك أنا الدهاي. هاي marka xagga marka aad tagteen oo la idin geeyayna maxaad la kulanteen? xagga marka aad tagno maanta garoonka soo degeynay. هاي. maanta garoonka soo degeynay waxa gabdho badan 22 ruux adilaba group waa nala soo kala wada group way naga soo horreeyeen groupna way dambeeyeen ani groupka dambe ku jiray. maalintii nala soo wadin waxaa la kulanaba inaa gumeysi sida nala soo wada guriyaan ugu xiray. haye guri saddex dabaq oo saddex diyaanaan ugu xiray moobeelada soo aruuriyaan la dhahay moobeeladii wadamadeena kasmaan nolol ay ku jiraan nagala qaadeen. haye bas markii daba moobeelada nagala qaadeen gabdhiida moobeelada ay dhiibeen maxaa waay meeshaan maxaa waay shaqo guriga sugayna qof walba markoo dhaani ماشي أفر الوقت تاع قميص صبحي السيد أنا قلت كيف إن الله تعدي أنا قلت شو أدي قوون قلت شو أنا لطمة. waa gartay marka xeradaas aad ku jirtaan maxaa lagu qabtaa idinka markii subaxdii aad soo toostaan maxaad qabataan ma la idin tababaraa ma shaqo sugayaal baa tihiin? maanta dhan niman inaado carab le dhex joogaan wax Soomaali ama wax safaarad oo noo dhex joogana mala maalinta nala soo wadaan waxaa dhaldaa Soomaaliya meeshaas joogto safaarada joogto dad oo waxaa tihiin oo qaraabo oo micnaha oo madax soo dirsato cid wax needin karta malaan ilaa iyo haddana wax Soomaali isheen masaar Soomaali magaceeda ku diimoonaago mucaamilka dadka cumaasha ah ee lagu dhaqmo wadanka Sacuudiga inay ma aragtay aad u hooseyso taas waxa ka sii daran waxyaabo kale oo xadgudub ah ayaa ka dhaca xadgudubkaas oo gaarsiisan ilaa la dilo oo waxna loo raacan marka waxay la tahay annaka gabdhaheenu waa sharafkeeni waa karaamadeenni caa'ilada guriga gabadha ayaa sharafkii caa'ilada haysa karaamadii ummadana ayada haysa marka gabdhaheeni in lagu farxumeeyo oo lagu dulaysto wadanka Sacuudiga annaku raalli kama noqon karno dawladana waa ka xunnahay meeshaas inay qatif ka gashay inay ka noqoto intaan la gaarin intaan kumayaal ayna dhibaato la kulmin oo laga soo tuurin dabaqyo oo lugaha laga xirxiran sidii adoomadii midaan jaamacadda carabta waxay la tahay jaamacadda carabta haday sharci leedahay sharcigaas in dhowray ahayd laakiin waxa muuqata jaamacadda carabta inayba noo haysan inaan jaamacadda carabta ka tirsannahay tani runtii anaga qayladaanteeda maalmahanbo dhigayna ay ku soo dhacaysay maadaama arrin nagu cusub oo uguba ay ahayd hablo Soomaaliyeed oo shaqo siin wadamo kale oo weliba dunida carabta gaar ahaan boqortooyada Saudi Arabia in loo qaado halkaasna ka fiilo oo ay ka noqdaan kambaniyo si hadda marka iyadoo awalba iska jiray shaqiyo fara badan iyo aragtiyooyin kala duwan hadda waxaa soo kordhay in la leeyahay hablo badan oo Soomaaliyeed ayaa la kulmaya tacadiyo oo dhinac kasta oo jirka oo sharafta oo maanta karaamada oo xuquuqda tacadiyadaasi waxaa soo
geli kara wax aan diinta islaamka ku banaan. marka qayladaantaasi safaarada soomaaliyeed ayadoo qaar xogteeda runtii ay hayso oo dad runtii badan ayaga cabashadaasi iyaga ay soo gaarsiinayaan meelaha iyaga isleeyihiin waa ay mudan yihiin inaan maartay la gaarsiiyo qoysaskooda ayaa annaga waxay nagu soo gaartay in maartay meelo adha iyo maartay gabdho soomaaliyeed oo la geeyey inay arrintaasi runtii ay u taabatay xanuun badan.